السلام عليكم أصحاب توائدين سلامي سلام كبعدي أنا وكين قديقسي أنا عاو برنامج يراها هنا وحرنا إنا فلنقيو ما حل لها دي خطبتي حالي أنا صادقني مدحوينا دولة الفدرال في الصومالية حسن شيخ محمود أو كجيدي مقالة حضر مركوك سقناع أنا خطبة مدحوينا ودقيقتين dhowr meel ay taabanaysay oo deegaanka iyo ku saabsan la dagaalanka al-shabaab ku saabsan iyo horumarka dalka uu u baahan yahay iyo wax ka hor istaageen iyo in wajigii labaad uu furmi doono markuu madaxweynaha ka soo laabto dhuusamareebsa u maleeyo uuna u sheegay inay reer boqol iyo deegaanada hadda argagixisada haystaan inay isdiyaariyaan maanta diyaargarow ay bilaabaan waxaa muhiim oo aan barnaamijkan usoo duwaa waxay tahay aan barnaamijyadeeda koowaad aan horey ugu soo hadlayba aan dhahay magaalada xudur waxay yeelatay oo ugu hoggaansantay inay dhalinyarada hoggaamiso guddoomiyeeda Cumar Atu oo aan mar hore soo falanqeynay waxqabadkiisa iyo wuxuu soo sameeyay iyo wax daaha saarnaa oo banaanka imaaday inuu xasan sheekh maxamuud xudur imaado uu xudur hadalkii ugu baahnaa shacabka Soomaaliyeed dhan ogaadaan inay magaalada xudur ay tahay magaalada kaliya al-shabaab aysan lug soo gelin karin aysan baadna ka qaadin aysan waxba aysan dhaxmarin inuu cadeeyo waa madaxa ugu sareeyay dalka taasna Soomaaliya oo dhanna ogaanayso oo maqlayso ma waxan dadka kale dhaayeen marba doo madaxweynaha uu amaantaas idin siiyay waxa waaye waxaan rajeynayaa inay indhihii shacabka Soomaaliyeed inay idinku dhankiina ay u soo jeedaan waxaan kaloo rabaa inaan halkaan aad ugu mahadceliyo guddoomiyaha maadaama uu madaxweynaha afkiisa ku sheegay inuu guddoomiyaha hadalkiisa uu ka codsanay inay tahay in magaaladan dib u dhis loo sameeyo in magaaladan maaragtay laamiga maalin hore la bilaabay oo caradiisa iyo wixiisa la sameeyo hordhac u ahaayeen in laamigaas 2 kiiloomitir la saaro jidkaas laami la saaro madaxweynaha afkiisa uu ku sheegay uu dhahay in anagoo dagaal ku jirno dib u dhiskiina ma wada karna laakiin 2 kiiloomitir waa la sameyn karaa inta anagoo dagaal ku jirna sameyn karnaa taasna uu u balan qaaday codsigaasna wuxuu ka imaaday iskama balan qaadin waxyaabaha horumarka leh guddoomiyaha uu miiska u soo saartay waayo awalka 30 sano oo dambeysay ma dhici jirinba in guddoomiyaha madaxweynaha hore imaado uu dhaho kii koonfurka federaalka uu dhaho laamiga hor dib u dhis rabnaa ma dhici jirin taasna waxay u muuqataa in reer boqol shacabkeeda iyo maamulkeeda ay u diyaarsan yihiin inay noqdaan dad horumar sameynayo dhaqaaqay inay dib u dhiskooda sameystaan inay maaragtay isku maaragtay wax isla qabsadaan hadda ka arkaysay internet iyo magaalada ka maqseen waxaa la sameynayaa guddoomiye xaafadaha oo aag hor ma jirin yaa guddoomiye xaafadan yaa ka mas'uule cid maaragtay mas'uulka mala laakiin hadda dhalinyaro soo istaagtay inay guddoomiye xaafadu noqdaan xaafadahooda taasna waxay dhalinaysaa in xaafadaha hadii guddoomiye loo sameeyo lagu ogayo lagu la xisaabtamayo wixii xaafadaas ka dhacay amnigeeda iyo maaragtay wixii bini'aadanimo intaba maaragtay lagu la xisaabtami karo waa taas waxay dhalinaysaa hadii guddoomiyahaas dhalinyaradu yahay wax bartay wax qabadkiisa la arko in xaafada dad ku nool ay isku tartaan ay horumar sameeyaan dib u dhis u sameeyaan xaafadaas wadooyinkeeda dadka xaafadaha u dantayar dadka xaafada ku soo kordhay amniga intaba maaragtay inay wax laga warqabo ay noqon karto ay u fududeynayso maamulka inay la socdaan dhaqdhaqaaqa ku nool magaaladaas weligeed may soo dhicin 30 sano dadkii soo haystay hadda way joogaan meel ay guddoomiye ku haystaan lama arkin meel walba hay'ad maad iiga taagnaa xaafad walba wax laga sameynaa iiga taagnaa marka tan waxay cadeynaysaa maamulka inuu rabo inuu dhiso
degmadan mar haddii degmadan ay dhisanto saa isku toosanaanto waxaa ogahay in degmooyin kalena ay saa ay maaragtay ay isku dayanayaan dad kale gobolka Bakool maamulkiisa weli way jifaan aad maalmahan waxa maqlaay gudoomiye cusub la sameeyay loo isku haysto waxaas waa wax arin aniga siyaasad kuma maaragtay kuma jirno muhiimadeeda waxay tahay inaan arko magaaladaas oo horumar sameysay magaaladaas oo maaragtay dalka kala qab dadka qurbaha jooga degmada Xudur ku nool waa la wada yaqaana mar walba clubhouse ku jira mar walba way soo qeynaa laakiin waxa la rabaa ay naftigooda inay magaaladii ay dib u dhiskeeda ka tartaan ay wax cusub keenaan muhiimad ugu weyn oo hadda sanadkan intuusan dhamaanin magaaladaas maamulkeeda aan ka codsanayna waxa magaaladaas in la keeno ama contractor-ka campaign koronto siiya muhiimad aad iyo aad weyn hadda bihi waa la sameeyay wadooyinkii waa la dayactirayaa laakiin koronto la'aan waxba ma shaqeynayaan in korontooyinkaas campaign share la galo oo ay imaadaan beeko ama waxay noqoto in magaaladaas koronto la siiyo dadkaas way kaceen waxaan rabnaa in la garab qabto dadka ganacsatada kula Baydhabo Muqdisho ilaa iyo dibidaha kulli waa la wada qabaa in reer Bakool oo badan Baydhabo dadka ganacsiyada ugu waaweyn dadka dibidaha jooga waa la wada yaqaana marka aan u wada istaagno aan dhax ku fiirino teeda kale madaxweynaha qodobadiisa waxa ka mid ahayd in maaragtay aan diyaar garowno ciidankeena iyo hoolaheena aan diyaarsano saan wadooyinkeena u furno ilaa iyo meeshii Bakool ay ku egtaa oona la xajiyo inta la furo sida hadda maaragtay dagaalada ka socdo galmudug qaar iska soo baxaan qaar waa la doomaray waxaas la maro waxaa la rabaa meesha la qabto in ciidan uu joogo laga sii socdo laga sii in sida awlkor loo mari jiray Xudur ilaa iyo Eelbird ilaa waxay sii maraan Eelbird tagan dhaxdan ciidan ma ku harin baa socda waa la soo laabto wax soo harin meeshii ay soo laabtaan wax ku soo haray mala marka hadii deegaanadaas ciidan ma ay tagaan ganacsiga sii soconaya biximashirka dadkii isdhaxgalay maana magaalada way sii weynaanaysaa horeen u soconaysaa marka waxa loo baahan yahay inaan isku duubnaano wada jir ahaano sida maalin hore video macaaladkii iyo isku haysteeno elboorka kan loo diiday Xudur ma xismiga lafta garan waxaas waa siyaasad iyo dad maarada bulsho inay ciyaanayta hadii nin qofkii wanaag noo wado soo dhaweynana keesharnaga noo wado waa iska fogeynana maaha agaasimaha madaxtooyada Xudur waxa aniga maal video laga soo dhigay asigoo si maamul qof mas'uul hatta koonfur galbeed u qaabilsan oo degmada jooga hatta u hadlaynin ma aha adiga agaasima tahay dawladda koonfur galbeed ama talooysa waa la ogyahay gobolka Bakool Xudur degan tahay adiga waxa laga rabaa inaad ka heshid dhibaatooyinka jiro iyo wax maaragtay wax qabad u baahan arimaha maamulka sare iyo mucaaradka hadii afraha la soo gashid meeshaas waxay noqonaysaa dhowdii maamulka haduu isbedelo adiga maxaa ku yaal magaaladaas daraa asaasna laga laabana laga soo horjeedo wax qabad male marka anaga marabno inaan mucaaradna ku noqono maxaafadkina la joono laakiin ninka wax noo qabanayo soo dhow marka arintaasna maaragtay agaasimaha aad iyo aad ugu fududaaday wax ceebeen ahayd hadal xataa qof mas'uul ku hadlayo ma hadlan marka in arimahaasna laga waantoobo sida gudoomiyaha uu u diyaarsan yahay hadda maanta waxay la shiraayeen gudoomiyaha baarlamaanka federaalka oo magaalada ka soo jeedo odayaasha maamulka way joogeen sawiranta arkayteen wixii warbixin ka soo baxna waa baarlamaanka markii la furaa arkayna waxaan loo baahan yahay maamulkaas in maaragtay loo istaago in had madaxweynaha balantaas uu qaaday wadadaas laamiga la saarayn looga harin maamulka ka talinayo koonfur galbeed lagu la xisaabtamo wax badan oo maamulka inta loo soo magacaabay oo bajejo badan inta laha waxa jirta oo hawada mara waa in lagu la xisaabtamo wasiirada ka soo jeedo gobolkaas magaaladaas inay daeegana ay wax qabadkooda la arko in ciidankan hadda maaragtay Xudur jooga aad ku tiro badan oo labada gaari heesta kaliya mara waa ciidanka waa in loo keenaa hub
gawaari ku filan afna ay kan madaxweynaha taasna waan ka codsaneynaa in tabaabashaysta marka loo dadkan gaari dameer kuma baxayaan laba gaari cabdibilam 3 ay 4 joog in intaas oo ciidan oo 5,000 ama 3,000 gaaray laba gaari kuma bixi karaan marka in dib loo barnaamijkayga waxaan kusoo gudayaa in wadajir la ahaado in ciidankaas gaari iyo ku filan iyo ku filan loo keeno sayid isku abaabulaan culaysaa soo fuulay inaan anagana aan culayskaas aan iska kala bixino oo maamulkaas degmadaasna la garab qabto qurba joogta iyo ganacsatadana inay iskaashadaan gaar ahaan shirkadaha waaweyn sida Hormuud Dahabshiil Somtel oo meesha xarumo kale inay si balaariyaan si magaalooyinka kale u dhisayaan Muqdisho hadda way dhisayaan way ka qayb dabdamisa joogo wax kasta joogo hadda maalin hore markay fadeexada ka dhacday birta ay soo dhacday dabdamis malaan gargaar uma joogo marka waxa loo baahan yahay inay ganacsatada naftirkooda loo xisaabtamo canshuurta laga qaadayo inay hadii hadda canshuur ma laga canshuurta bedelkeeda in la dhaho wax sameeya waxa ay horumar sameeya wax muuqda degmada u qabta marka waa in salaamaya barnaamijna qodbada madaxweynaha intaas ahayd hadalkaygana waa sii dheereeyay waxaan rajeynayaa insha Allah in dad Soomaali isku wada jirto oo reer koonfur galbeed reer Bukoor isku wada duwan insha Allah waa inaan noqono isku rajeynayaa walaalahayna Falastiin waxaan leeyahay Ilaahay dhawaatada ka dulqaad Ilaahay u gargaar hadda waxa waaye runta waa isla arkay qof dulminay ma laha islaamku dhanna waxaan rajeynayaa in hal meel isku wada مدان هل فكر النغلان إنه إلهي نبدأ أنصور الدعينه برنامج كان هالكاس كيجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته